anigoo ka tirsan xaafadda Maxamuud Haybe gaar ahaan la jameeco weyn magacayguna yahay Ilhaan Daahir waxaan sheegayaa maanta mudaharaadkii foosha xumaa ee ka dhacay xaafadda Goljanno iyadoo shirkad gaar ah lagu bartilmaameedsanayo rayigii madaxweynuhu soo jeediyay ama se dawladda cid khilaafsan ma jirto laakiin dawladda waxaan dareensiinayaa dadka qabyaaladda iyo birahan hala fujiyo tala sabxishiiskeeda ha gurata ku hadlaya waxay wuxuuga qaban weeyday halkana hadii laba qof dhaqdhaqaaqan askar la noo soo dalbanayo aad iyo aad baan madaxweynaha iyo xukuumaddiisa u taageersanayay waxay soo jeediyaan laakiin xaafadda Goljanno ee qabyaaladda ku hadashay dawladdu ha ka jawaabto intaasaan ka codsanayaa dawladda aniga oo magacayga la yiraahdo Raxma degan xaafadda Maxamuud Haybe waxaan ka hadlayaa dhacdadii ka dhacday Goljanno waxaan doonayaa inaan jawaab siiyo dumarkii Goljanno ka soo baxbaxlaha ee lahaa saada madaxweynuhu bagaad joojisay birahana naga gur faarig bayna qaadsiiyeen intaas qof baa faarig laga qaaday hadii bir faarig laga qaadayo keybulka dhulka hoostiisa maray aakhirada dadkii joogay faaliga ku riday kuwa adduunka daayo ayaan anaguna soo gurayn intaan cagaf galino waxaan leeyahay dumarka Goljanno afdawalni waa dahab garoonka inuu biraha isku keenay leen diyaariya shirkad qura laba laalaabay shirkad walba way laalaabanaysaa hadaa wanaaga diidaan hadii kale waxaan leeyahay abtiyaan burkina dubta ha isku baaqina hadii kale bishaas oo fureed waxba ku dari maayo waxaan doonayaa inaan ka hadlo mudaharaad yar oo badnayn oo waxa weeyaan maalin dhaweyd ka dhacay xaafadda Goljanno dhammaan waxaan u jeedinayaa shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland inay xukuumaddu soo saartay qaraar 48 saacadood ah oo kaga hadlayaan labada shirkadood ee dahab iyo Telesom hadda walaalayaal waxa isweydiin la doonayaa in la isweydiiyo sababta ay xaafadda Goljanno intii mudaharaad abaabulan waxa weeyaan waa laga dambeeyay waayo hadaan laga dambeeynin markiiba dawladdu waxa weeyaan way u tagileed waxba laga qaban lahaa markaas waxa weeyaan mudaharaadkaas oo laga dambeeyay waxay kaga hadleen maadaama dawladdu 48 saacadood in adeegyada lagu joojiyay iyo dahab iyo saad ay sheegtay sababta reer Goljanno ay u weerareen shirkadda Telesom leedahay iyagoon ii dahab ka hadlin sababta ay waxa weeyaan u yiraahdeen waa in birahayaga laga goostaa sababtoo ah dadkii bay faalig lagu rideen waxay ku miirsanaabeen xildhibaanadayda noo soo baxay degdeg waa inay biraha nooga qaadan waa inay dhaafiyaan waa inay halkan geeyaan waxaan u sheegayaa anigu Jamhuuriyadda Soomaaliland golaha wasiirada dhexe iyo dawladda hoose iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland hadii aanay dawladdu raali ka ahayn mudaharaadka Goljanno ka dhacay waxa weeyaan oo intaa dabadiisa loo fadhiyay oo ganacsata waxa weeyaan wax la qariyo qurba ku jira baali oo sheekadan ganacsatada ka dambeysay aanay ahayn sababta ay dawladdu uga qaban weyday anagu waxa weeyaan waxaan ilaalinaynaa nabadgelyada anigu waxaan ku noolay xaafad degmada Maxamuud Haybe waxa weeyaan waxaan anagu ka hadlaynaa waxa weeyaan kicin maaha shicibkayga aan kicino maaha inay dagaalamaan maaha inay mudaharaadaan maaha inay taageero gubaan maaha laakiin anagu waxaan u sheegaynaa dadkii Goljanno maalintood ka soo hadlayay habrihii waaweynaa dumarkii raggii ee cid kasta isugu jiray ee isqaban waayay ee garan waayay war Telesom shirkadda la yiraahdo horta marka hore ma qabiil gaar ah leh mise qaran baa leh oo ummadan iyo waxaan ku imaamka Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasto ka joogo ayaa isticmaala waxaan anigu u sheegayaa anigu message diraya gaar ahaan xaafadda mudaharaaday ee Goljanno waxaan leeyahay walaalayaal waxaad ogaataan habar loo waayo waa hogowjiid baa leeyahay marka waxaan idin sheegayaa rag iyo dumar iyo ciyaal iyo dhalinyaro iyo intaba wala haydeen waxa message-kan uu ku socdaa waa idinka weeyaan waxaan idin sheegayaa oo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar koowaad bay idin sheegayaa waxa hadda joojin weydaan waxa weeyaan wixii ka dhaca anagu ma naan dhigin waxaan anagu dadka u sheeganaa xaafadda message-ka u dirana reer Axmed Dagax iyo reer Maxamuud Haybe waxa weey meel kasta joogaanba waxa weey waynu aradanahay waxaan ka aradanahay shaqadii dawladda aan ka aradanahay 20 hadda iyagu jaamacadda bay anagu shan kala kaanaan dhameeyo sitaa shaqadu qabyaalad bay noqotay meel kasta magaaladu dhinac bay ka rarantay waad aragteen waa doon dhanka ka rarano saasuna socota waa la soo tirkoobay shaqaalaha dawladda 90% waxay noqotay xaafadda subaxii markuu waagu bariyo in magaalada Hargeysa dhex maro gaar ahaan xaafadayda gaari tiitiya oo wax shaqaalaha naga qaadaya ma arko indhaha iguna ma qabtaan haddaan wax arkana waa xaajiyad qorqoroca waran waxaan ka hadlayaa madaxweynaha u sheegay Jamhuuriyadda Soomaaliland inaan sixib waxaan aaminsanahay dahab iyo saad inaan midna sixir bararka wadanin arrin yar siyaasadaysan mar anagu wadayaaluna shacabka Soomaaliland halka warkayna ka waxa leeyahay madaxweynaha bal arrinka dib ugu yara noqo madaxweynaha wuxuu hubiyo number 2 wuxuu yahay dumar baa habeen dhaweed hadlayay Goljanno olaha birahan hana laga laabo waxaan leeyahay horta Soomaaliland cidina ma kala laha waa la wada leeyahay
marka saddexaad haddaan halka idin yara dul istaago adiga laftarkaagu dayna telefoonka telesom idina kama maaran wala wada isticmaalaa bal haddaynu dib u eegno hadday leerto bira aynu isu qaadno dib ma waxaan malaynaynaa inaan Soomaaliland la kala guri karayno reer walba birta ka hor taala inuu iska soo laabi doono bal aynu soo gurna meeshaynu isugu keeni lahayno hal helo midda labaad waxa dhan la sida inoo hadashaan waa qalad maalintii hore halka mudaharaada way idinka maalinta labaadna qolada hadana ku cilisay tiribiraha la laabo idinka ma fahmi karee bal arrinka inaga baandheeyo telesom waxaan soo galay la waliba waa kala saarteen waxa tiraahday faalig bayna qaadsiisay telesomna waan ka soo horjeednay xaafadaanu jaarkana waxna kala galay garan wayna bal insha Allah taala idinku dib isugu noqdo mar dambe dagaalkina inta foorka haynugu celinayna Soomaaliland nabadeeda hal wada ilaasho